qofka siraada muqdisho ka soo qaado warqadna oo xoolaha berbera kaga dhoofayaan uu iska hadlay xog kama jiraan wada maanta runtii sharaf weyn bay tahay inaan noqdo wasiirkii u horeeyay sida ay sheegeen odayaashu seelada soo dhex taaga waxaan qabaa in neefka xooligu yahay waxay Soomaaliland ku nooshay ama Soomaaliya ay ku nooshay sideedaba hooyada halka ku imanaysa neefka xoolaha waxa laga yaabaa inay intaas oo reer ay ka qoodiso ay ka maartay deew ka tago cadkiisii caanihiisa oo waxaan ku noolnahay muhiimadda marka wasaaradda xanaanada xooluhu waxay u qaabilsan tahay qarankan waxay u qaabilsan tahay waxa weeye inay caafimaadkiisa ka shaqeyso horumarintiisa ka shaqeyso daryeelkiisa ka shaqeyso dadkii xoolaha lahaana ayagana wixii ay la qaban karayso dhan ay la qabato inta marka laga reebo waxa ugu muhiimsan waxa horta marka hore aan doonayaan idin sheego waxa maqlayseen inagu waxa weeye neefka xoolaha baan dhoofinaa neefka xoolaha wuxuu ka yimaadaa awaare wuxuu ka yimaadaa maxay tahay wadan Soomaaliya dhan ka yimaadaa kaalga ka tagaaba wuxuu baxaa uu ka dhoofa maxay tahay ama dekada berber ka dhoofa sida maqlayseen amba mararka qaarkood media aba ka maqasheen waxa jira 3 macshar oo xoolaha dhoofka xoolaha ay maraan 3 macshar xoolaha laga dhoofiyo 3 macshar waxa loogu talagalay in caafimaadkooda xoolaha lagu ilaaliyo standardkii ay waafaqsanade wasaaraddu ay u ogolayd in lagu ilaaliyo waxa jirta maalmo dhaweyd amba intii imika bariyaanba waxa socday dawladda Soomaaliya in carqalad ku hayso xoolaheena carqalad bay ku hayso xoolaheena waligeed lama arag la siyaad bare cid xoolaha carqaladaysa amba xoolaha siyaasadaysa ninka madaxweynaha imika Xasan Sheekh wuxuu sameeyay inuu nin Arab ah yiraahdo xoolaha waxaan xidhay berbera ka dhoofayay ayaan anigu u xidhayaa dadna niman warqad siinaya halkan waa Soomaaliland Xasan Sheekhna kama taliyo cid kalena kama taliso halkan dawlad madax banaan waxay leedahay waligeedba xoolaha halkaas ka dhoofi jireen cid kale oo arqaladayn jirtana ma jirto waxaan uga digaynaa aan leenahay xoolaha halka ka dhoofaya waxa weeyaan xoolaha Soomaaliland dariiqeeda mara cidna kama ogolin arqaladaysa anagu amba mid ha u xidhan amba midna u xidhin 3 macshar berbera waxaan u hakinay imika muddo waxay hakisay inuu mara 4 cisha sababtan u hakinayna waxa weeye si ay ogaataan maadaama iyada laf dhabarta xoolo ay yihiin xoolaha dhoof laf dhabarteena yihiin sababtan u hakinay wax kale ma aha waa inaan xaqiijino reer Soomaaliland inay xoolaha iyagu ay amarkooda ku baxaan aanay laakiin Muqdisho amarkeeda ku bixin warqad sita oo xoolaha halkaas soo maray cashuurta Muqdisho ku shubayo miyaan aqbalaynaa aqbalayna maaha weligeedna naga suura gali mayso qofka siraada Muqdisho ka soo qaado warqadna oo xoolaha berbera kaga dhoofayaan uu iska hadlay xog kama jiraan inta marka laga tago anu waxaan diyaar idin lanahay wasaaradda xanaanada xoolaha dawnahay inaanu dardar gelino shaqadii isbedelka ayaa ka mid tahay inaynu wixii hore wax ka bedelno haddii aan la idin iman jirin waxaan samayn doonaa maalin walba la idin imanaya gaari halka joogo oo emergency ah oo wixii loo baahda in qaado baynu sameeynaa habkan aynu xoolaha u dhaqan habkan aynu xoolaha u maamulnana waxaan doonaynaa wax badan ka bedelno sababta waxa weeye neefka xoolaha markuu imika la soo qaaday gaariga laga rogo imise meeyada ka dul qaadaan intaas oo dhan habka xoolaha loo sareeyo wax ka bedelnaa baynu baahnay sharciga way noogu qoran tahay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo loo maamulayo shuruucdeena sheegaysa neefka xoolaha waxa la doonayaa inaan dhibaato iyo culays toona dareemin halkan marka laga raro meel kale lama istaajin karo neefka xoolaha marka halka laga raro inuu halkii loogu talagalay inuu toos u istaaga aniguna xoolo ma aan dhoofine nin waxaan oo dhan si fiican u garanayaanahay aad noo fahansan wixii aanu idin la qaban karayno dhan insha Allah waan idin la qabanayna maanta halkan nagu soo horeynay seeladana waa seelada labaad ee reer Soomaaliland ay leeyihiin xoolaha marka insha Allah waxaan samayn doonaa wixii dhibaatay carqalad idinku ah dariiq iyo meel leen amartaan ayaan idin samayn doonaa oo markaba laga soo jawaabo idinkana waxa idin doonayaa xoolaha iyo daryeelkiisa iyo wixii loo baahan yahayba
ina idinkuna maartay dee aydan u qabin waa ka mamnuuc xoolaha in lagu qolo meel aan hayn kawaanka kawaan bay loo sameeyey caafimaadkii baa ku jira neefkan marka la qalayo waxaynu baadhnaa dariiq dhan buu maraa caafimaadkiisa la eegaa innagu waxaynu u baahanay cunto iyo cad beed qaba in bulshadeena u gudbo neefka lagu qalayo meelaan ahayn kawaanka carqalad buu runtii ku yahay arrintaana waxbaan ka qaban doonaa haddii la idhaahdo saasaana inoo ballana runtii annagu si dhow baanu ula shaqayn jirnay ka wasaarad ahaan hortaa iminkana si kasii wanaagsan baynu rajaynaynaa inaynu ula shaqayno sayladda xoolaha laba qodob baana ugu muhiimsanaa waxyaabaha aynu ka shaqayno wasaaraddu iyo roolka ay ku leedahay halkan waa ilaalinta caafimaadka xoolaha inaga dhoofaya iyo ilaalinta caafimaadka xoolaha la qalayo labadaba runtii rool baynu ku leenahay ka wasaarad ahaan marka intii wasaaradda runtii kaagaasima guud ahaan aan imid waxaanu aad u laban laabnay inaannu ka hor tagno caafimaadka xoolaha ilaalinno oo inta badan xoolaha inaga dhoofaya inaan dalka dib loogu soo celinin maadaama heshiisyada aynu kula jirno waddamada xoolaha inaga qaata ay yihiin in baadhis wanaagsan ay maraan xooluhu oo ay kala duwan yihiin muxuu ahaa waddamba uu leeyahay kriteeriya gaara oo xoolaha inagaga qaato xoolaheennu sidaa iminkana xooluhu si wanaagsan bay u socdaanoo sidii hore way ka wanaagsan yihiin sanadadii hore inaynu sii laban laabnaanu rajaynaynaa ka wasaarad ahaan wixii baahiyo ay qabtaanna wasiirku inuu indhaindheeyo oo arko wax idinkala qabto wax ku soo kordhiyo wasaaradda runtii waana meeshii u horraysay ee uu booqashada ku yimid sayladaha iyo maxjarrada ayaanu ka bilaabayaa